kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa Samiir Films haddii ay taa markii kuugu horeysay oo aad na soo booqatid ha ilaawina subscribe tira channelkan kadibna furtid calaamadda gambaleelka si ay kuu soo gaaraan wax walba oo ku cusub channelkan oo aan soo gelino waxaan halkan idinku soo gudbin doonaa warbixin aan kaga hadli doono nolosha gaarka ah iyo waxyaabaha ay xiisayso gabadha lagu magacaabo Dibika maxaad ka ogtahay oo aad kala socotaa nolosheeda gaarka ah iyo waxyaabaha gabadhan ay xiisayso haddaba wax badan oo aadan ogeyn halkan ka ogow Dibika qamriga ma cabto balse ma ogtahay inay arkay si waali ah ay u taageerto xidigta weyn ee maqaamka sare maanta ka joogta Bollywoodka ama ka gaartay waxay dunida ku soo biirtay 5 January sanadii 1986 xidigtan ma ahan shakhsi nolosha caadiga ah balwad ku leh sida inay sigaar cabto oo kale balse waa shakhsi markii aflaanta ay sameynayso cabto sigaarka waana mid markaas muuqaal looga duubay oo kaliya xidigtan waxay fanka ku soo biirtay sanadii 2007 filimkii ay directorka ka ahayd Farax Khan sidoo kalena hogaamiye uu ka ahaa SRK balse taas ka hor waxay Farax Khan la saxiixday filimka Happy New Year kaasoo la daawaday sanadii 2014 oo uu hogaamiye ka ahaa isla SRK Dibikana ay ka ahayd atriisho balse Dibika filimkan Happy New Year waxay saxiixday sanadii 2007 wuxuuna ahaan lahaa filimkeedii koowaad oo ay Bollywoodka ku soo gasho balse ma dhicin midaas oo filimkaas dib ayaa loo dhigay sidaas ayayna Dibika Om Shanti Om ugu soo caanbaxday wuxuu Om Shanti Om u noqday blockbuster weyn Dibika xidig weyn oo ay ku noqotay filimkaas wuxuu Om Shanti Om u noqday blockbuster weyn Dibikana xidig weyn ay ku noqotay filimkan sidoo kale waxaa ka mid ahaa arrimaha u gaarka ah xidigtan inay sanadii 2016 noqotay atriishada ugu mushaarka badan guud ahaan atriishooyinka Bollywoodka maadaama filimkeedii Bajiro Mastani uu noqday hid weyn dhanka kale waxyaabaha ay xiisayso xidigtan waxaa ka mid ah cuntada ay cunaan dadka koonfur India aad ayayna u jeceshahay xidigtan sidoo kale dharka faashiyoonka iyo modelka ah waxay ka jeceshahay dharka hindida ay xirtaan ee loo yaqaan saarida aqrinta buugaagta waa waxyaalaha ugu waaweyn oo aysan ka maarmin xidigtan xitaa hadday gurigeeda aysan joogin oo ay wadamo kale aflaan ku duubayso dunidan aynu ku noolnahay Dibika waxay ka jecelaatay oo ay mar waliba jeceshahay inay dalxiis u aado dalka Faransa sidoo kale xidigaha ay Bollywoodka ka taageerto waxaa ka mid ah SRK Amitabh Bachchan Aamir Khan iyo xidiga kale dhanka xidigaha atriishooyinka ay Bollywoodka ka taageertay Dibika waxaa ka mid ah Hema Malini Kajal Manduri Dixon Rani Mukherjee Sriya Dev iyo waliba Preity Zinta waad ku maasantahay daawashadaada